أنا حلكي قوي ما ضاح ما وضع ما أني يا حناق بضن ما أظن حقيقة ما أنا حسابتني. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا الكيمبا ميل والبود عالم كجوجتان كسو دوادا مركلة قول شو مركه هره dhegeysta daawade noo share gare subscribe gare isla markaana like gare YouTube-keena Guul Show. waxaad halkan ka daawataan barnaamijyo yaryar oo markaasi goos ah iyo talooyin muhiim ah oo loo baahan yahay bulshada inay wadaagto. haddaba maanta waxaynu ku soo qaadanaynaa qaybtii taxanaha inoo ahayd ee noloshaada maaree. haddaba inta aad ku guda jirto maareynta noloshaada ayaa waxaa kula soo darsaysa nololo kala duwan isla markaana wajiyada kala duwan ee ay noloshu leedahay ayaa u baahan hadba inaad wajahdo. barnaamijku waxaan jecelahay inaanu ka badanin 10 daqiiqo oo kaliya, qodobo koobanna waa aynu ku soo qaadan doonaa. maanta waxaynu uga hadlaynaa xanaaqa. inta aad nooshahay waxaad la kulmi doontaa xanaaq ama dad iska hortimaadaan ama isku dhacyo bini aadamka koonkan ku nool ama adiga nafsadaada ayaaba isku xanaaqi kara. mararka qaar ayaa waxa dhacda in marka aad hurdada ka soo kacdo adoo xanaaqsan aad soo kacdo. haddaba bal aynu eegno qodobada ugu muhiimsan ee markaasi la dhihi karo maxaa keena xanaaqa sidiisaba. xanaaqa idin dhexmara bini aadamka waxaynu ka soo qaadanaynaa 4 qodob oo kaliya, inkastoo aynu ogsoonahay xanaaqu inuu aad u badan yahay oo waxyaabo kala duwan uu ku imaan karo. hase yeeshee aaska adiga iyo qof kale oo bini aadan ah waxa idin dhexmari kara marka uu xanaaq yimaad ama sababi kara ayaynu 4 ka soo qaadanay. okay, qodobka koowaad waa isfahan la'aan. isfahan la'aanta marka haddaba maxaa keena? waxa ka turjumaya qodobka labaad oo ah isdhageysi la'aan. haddii aanay dadku isdhageysan waxay noqonayaan laba hadal oo isku dhacay, kana wuu hadlayaa kadibna waxaa dhacaysa in dadkii ay isku dhacaan. maxaa yeelay qofkii wax dhageysan lahaana ma dhageysan, kii aan la dhageysaninna ma qanacsana. sidaa daraadeed waa qodob aad u muhiim ah isdhageysigu, dadku inay isdhageystaan. waxa u baahan marka inaad dhageysato caruurtaada oo ugu horeeya oo ubad ah. waxa kale oo aad u baahan tahay inaad dhageysato dadka kale kula hadlaaya. waxaad u baahan tahay bini aadamka fariinta uu ku soo gudbinayo inaad dhageysato. haddii aad dhageysan weydo waad iskaraash gareyn doontaan, meesha isku dhacaan waxa ka imaan doona xanaaq. qodobka labaad ayaan u gudbayaa. qodobka labaad isla tii ayuu hoos imaanayaa communication xumo, macnaha xiriir xumo. waxaa laga yaabaa qof inaad sanado badan wada nooshihiin oo haddana wax walbo qofka kale ku soo kordha aydan war iska haynin. maadaama xiriirkii xumadaasi ay jirto, wax walba oo idinku soo kordhana aydan ka manaashaqoonin oo aydan qaadaa dhigin oo aydan isla ogeyn oo qofba meel u fikirayo, waxaa imaanayso waxaa loo yaqaano communication xumo. communication xumaduna dhibaatada ugu weyn oo ay leedahay waxay tahay in aad isku xanaaqdaan qofka. haddiise aad isku xanaaqdaan sidoo kale waxa ay ka mid noqon kartaa daawada ugu muhiimsan ee qofkaas iyo adiga isfahamkiina. qodobka kale ee ugu dambeeya afraad, xadgudub lagugula dhaqmo. wuxuu noqon karaa xadgudub maskaxeed, xadgudub jireed iyo weliba sidoo kale xadgudubyada aadka u tirada badan oo aynaan markaasi maanta ku soo qaadanaynin barnaamijka. marka haddii aynu soo sheegnay 4 qodob oo markaasi sal u ah xanaaqa qof bini aadan ka xanaajin karo, oo aanu sheegnay qodobka ugu weyn inuu yahay isfahan la'aan, taasoo ay keentay xiriir la'aan, xadgudub lagugula dhaqmo iyo weliba isdhageysi la'aan. maxaa noqon kara xalka? xalka iyo talada aan kaa siinayo waxay tahay sidoo kale ilaa 5 qodob oo kale. marka adigu aad bini aadan tahay waxaad u baahan tahay qodobka koowaad dulqaad, inaad leedahay dulqaad. haddii aad dulqaad leedahay waxa aad ku guuleysan doontaa in
xanaaqaada aad maareysid. sidoo kale qodobka labaad oo isagana lagaaga baahan yahay ayaa waxa ah in aad tahay qof optimistic ah oo markaasi waxa lagaaga baahan yahay in xitaa qalad hadduu dhaco aad ignore gareyn kartid oo aad ma aragtay wanaaga ka eegi kartid arrinta. qodobka labaad ee markaasi wanaaga waxa uu daawo u yahay in qofkii kalena uu noqdo qof wanaagsan oo aan markaasi xanaaq kugu sameynin ama aan qaladaad badan kugula dhaqmin. marka labada qodob waa muhiim in qofku markaasi uu ignore gareeyo oo uu iska dhigo ama qof aan maqlin wixii la dhahay ama uu markaasi ka gudbo ee aanu ku soo qaadin ee aanu arrinta weyneynin. taasina waa xal aad u muhiim ah oo deganaan dhexdiina ka abuuri karto adiga iyo dhanka kale. waana qodob aad u muhiim ah. midda kale waxaa loo baahan yahay in aad waqti siisid qofka iyo xanaaqiisa. haddii aad qofka iyo xanaaqiisa waqti siisid qofku wuxuu noqon doonaa qof isweydiiya qaladaadkii uu sameeyey ama xanaaqii uu sameeyey oo aanu jawaabtiisa helin. markaasi waxay kaa caawin doontaa amaba qofkaasi ka caawin doontaa in marxaladaasi laga soo dego oo qofku markay maskaxdiisa soo xaadirto uu qofkii noqdo qof doonaya inuu markaasi kugu soo laabto oo uu qaladkii u galayna kaa dalbado inaad cafiso dib dambana aanay qaladka noocaas oo kale u soo noqonin. marka laga hadlayo dhanka caruurta iyo marka laga hadlayo dadka waaweynna waa ay kala duwan tahay. caruurta waxaa jirta si kale oo ka akhlaaq badan oo aad iyo aad adiga dulqaad aad u weyn inaad la timaadid lagaaga baahan yahay. taasise maanta topigeena ugama hadlayno. topigeena wuxuu ku saabsan yahay haddii markaasi aad ku xanaaqdo qof aad saaxiibo tihiin, aad wada shaqaynaysaan, aad wada nooshihiin ama markaasi waxyaabaha la midka ah. even qof aad jidka mar un isaga hortimaadeen ayaa arrintaasi dhexdiina ka dhici kartaa. hase yeeshee qodobkan kale ee aan rabo inaan kusoo gabagabeeyo inta aanan guda gelin ayaa waxaan doonayaa xadiiskii rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam ee ninkii uu yiri ila dardaaran ee uu nabigu calayhi salaatu wasalaam ku yiri ha xanaaqin ee uu yiri ila dardaaran ha xanaaqin. markaasi arrintaasna waxay noo cadaynaysaa qofku markuu uu xanaaqsan yahay inuu dhibaato badan geysan karo. wax yar oo markaasi dhacayna inay nolol aad u weyn ay salfan karaan. sidaa daraadeeda qodobkii hore aan soo dhaafnay ee waqti siida ayaa aad ku anfici doona. ku dhaqan oo markaasina nafsadaada ku tababar iskuna day in aad markaasi adeegsato. ugu dambeynta qodobka markaasi shanaad ee aan rabo inaan kugu soo kordhiyo ayaa waxa uu yahay isku day inaad noqoto qof mar walba dabacsanaan muujiya. xitaa haddii lagaa gardaran yahay isku day inaad qofka u dhimrisid oo aad markaasi dabacsanaan u muujisid si aad u gaartid xalka nolosha iyo weliba guusha ugu muhiimsan ee kaaga baahan maareynta oo aad markaasina xanaaqaaga aad markaasi ku maareyn kartid. ugu dambeyntii waxaan idinkaga tegayaa xanaaq waa wax aad u xun. isku day dhageysta daawade in aad maareysid noloshaada isla markaana aad noqotid qof deganaan badan, xasilooni badan, ka fiirsada 2 jeer ilaa iyo 3 jeer waxa uu sameynayo cawaaqib xumada ay markaasi u keeni karaan. barnaamijkan wuu noo sii socon doonaa qaybihiisa kale. weli maaragtay nooma dhammaanin balse qaybtani intaas ayaan kusoo koobayaa. taladii ku habbooneyd iyo weliba qodobadii koobnaa ayaan soo qaadanayba tan intaaynu ku kulmi doono kan midka xiga waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo. nooli kulantay.